Assalaamu calaykum asxaabtayda meel walba kala joogtaan waa idin salaamay aroor hadday kuu tahay aroor wanaagsan galab hadday kuu tahayna galab wanaagsan dhammaan say tihiin ma fiican tihiin mar hore isuukin dambeysay dhammaantiin asxaabtayda kuwa igu soo biray cusub iyo kuwa hadda hore ila joogay labada waxaan leeyahay qalbi furan oo saafiya insha Allah ku soo dhawaada Allah inaga aqbalo ducooyinkan soo daayo kuwa Ilaahay uu aqbalo kuwa anfac ka hela Rabbiga Raxmaanka ah isku soo duceynaa insha Allah ducooyinku iska fiican yihiin haddii aragtid walaalkaaga oo dhibaataysan waa loo duceeyaa ducadu waa sadaqo weeye ducadu waa loo duceeyaa marka mar walba aan isku soo duceynaa insha Allah intii muslimku meel ay joogaanba waa la isku duceeyo waa la isu duceeyaa qof dhiban haddii aragtid u ducee adna insha Allah Ilaahay ayaa ajarkaa siinaya markaad qof kale u soo duceysid haddaba mar walba waxaad iga barateen in ducooyin soo daayo ducooyinku baa sidaa wax ka wacan maba jiraan ducooyinka waa kuwii mustaqbalka lagu dhisay deesan ducooyinku jirin nololba ma jirteen waa sida aan kulay aaminsanahay ducooyinku waxay ka qayb qaataan nolosheena kamid yihiin nolosheen ku dhisnaa haddii aadan dadka ducooyinka akhrisanaa tahay ama xoog aadan u danaynin ama ii sheegay waxaan kugu waanin lahaa inaa had iyo goor ducooyinka laasimtid sida aroortii oo kale galbihii oo kale mar walba inaa laasimtid ducooyinka aad buu fiican yihiin in jismigaagu la qabsado aad buu anfac badan tahay qof walba waa noqon ama qof walba ii sheegay ka gaabinaya ama dadka qaar ka sii jeeda qof walba ku waani waxa ku tiraa ducooyin baa jira ducooyinkaasna waa lagu duceystaa si walba dhinac walbana way ka anfacayaan noloshaada ay ka mid noqonayaan horumar bay ku horseedayaan ducooyinka maxaa laga wadaa waa kalaamkii Ilaahay bay isku xiriirsiinayaan Allah Rabbiga Raxmaanka way isu keenayaan soo ducadu waa xiriirinta adiga iyo Allah in ka dhaxaysa dhammaan asxaabteeda meesha ku jirta waxaan kula talinayaa ducooyinka inay xifdiyaan insha Allah bilkariim duco walba ajirkeeda ay wadataa korna way ku qaas ducooyinku kor bay dadka u qaadaan waxyaalaha oo ugu faa'iidada wacan waa ducooyinka markaa ku celiyo insha Allah haddaba maanta ducadeenu maxay tahay ama maxay ku saabsan tahay saddex duco maanta inoo wadaa hadda ka hor waxaan u maleynayaa ducooyinkaas waan soo daayay laakiin ducooyinka maba laga soo daayay hadda ka hor waxaan u maleynayaa ducooyinkan waan soo daayay u maleynayaa ma ducooyinkan aan hadda soo gudbinayo waan soo daayay haddana ducooyinka kurbooyinka ama ducooyinka shii marka kugu taagay ama wax markay kugu taagan yihiin mar walba waa lagu soo celceliyaa mana laga daalo waayo waa ku dhibta ka saari lahaa soo ducooyinkan hadda ka horna waan soo galiyay af Soomaaliya waan ku soo qoray badana waxaan sameeyay xagga hoose af Soomaaliya waan ku soo qoraa si hadduu channel-kayga qof aan garanayn af Carabiga u yimaado Carabina ku qorto oo af Soomaaligana hoosta ugu qorto sidaa darteed baan ugu soo hoos qoraa af Soomaaliga ducooyinka kurbooyinka iyo ducooyinka marka dhib ku haysato iyo ducooyinka marka arrin ku taagan tahay mar walba waa lagu celceliyaa aniguna saanaan ugu soo celiyay insha Allah Allahayna ka dhigo ku isticmaala kuwii ku faa'iida qofka Ilaahay u carro Ilaahay ma hoojiyo ilaa khayr uu ka faa'iido fara badan iyo degnaansho aad ka heshid badana markaad baraha bulshada isticmaalaysid waxaa arkaysaa dad badan oo aad u dhibaataysan
oo dhibaatadooda doonaya meel ay kaga baxaan ama doonaya inay qofkaas u ka saaro, balse waxay lowsan yihiin dhibaatada laftigeeda inuu Ilaahay duco u soo dejiyay u sameeyay. Ducada waxaa loo sameeyay si adiga ku anfacdo, adigu waa u akhrisid, Ilaahay isku kin xiriirsiiso. Markaad dhibka aad ka cabanaysid iyo waxaad tabanaysid iyo waxa markaa ii sheegay aad ka cabanaysid, ducada markaad akhrisatid Ilaahay wuu ku maqlayaa, wax walbana wuu awoodaa Ilaahay, yacni wax walba Ilaahay wuu awoodaa, asaga ayaa kaa dulqaadaya. Ducadan yacni ma loo sameyn inaad kaliya aad akhrisid, waa inaad niyeysatid in markaad akhrisid Ilaahay uu kaa dulqaaday. Mar walba waxaa fiican inaad duco walba iyo dhibka noocu yahayba ha ku haystee ducooyinka lagu talagalay inaad akhrisid oo ku celcelisid hadba siday dhibaatadaada u badan tahay. Hadday yar tahay ku celceli, hadday badan tahayna ku celceli. Haddaad rabtid afkaba ha ka kala qaadin, markaas way kasii qurux badan tahay. Haddaba ducadan akhriso, arrin markuu kugu adkaado ducadan ku celceli oo waxaad tiraahdaa Allaahumma laa sahla ilaa maa jacalta sahla wa anta tajcala xasana idaa shi'ta sahla. Yacni arrin markuu kugu adkaado, arrintaas meel aad ka xalis markaa weyd ku celceli, waxaad tiraahdaa Allaahumma laa sahla ilaa maa jacalta sahla wa anta tajcala xasana idaa shi'ta sahla. Ducadan macnaheedu waxaa weeye Allow arrinkaygaadaan ku dhiibtay, tamar iyo taag midna ma lihi, Ilaahayow adaan kuu soo cararay, Ilaahayow arrinkayga ii fududee. Qofka Ilaahay magan gala Ilaahay ma hoojiyo, qofka Ilaahay u cararana Ilaahay Rabbiga Raxmaanka ah ma dayaco. Mar walba in Allah tala saarano, qofku hadduu Allah tala saarto oo isagoo xanuun ama arrin ku adag tahay ama dhib u haysto oo Ilaahay u fadhiisatid oo qalbiyan aad ka duceysatid, ma hoogasid waxaad Ilaahay u dhiibatay, yacni kuma khasaarisid. Bini'aadanka ayaa lagu khasaaraa ee Ilaahay laguma khasaaro. Yacni arrin baa Ilaahay laabtaada iyadoo daacad tahay ama kal iyo laab uga sheegatay, wallaahi kuma khasaarisid ee tijaabo baadan weli isku dayin. Ducadan kalena iyadana akhriso, isla sidan arrintan adkaatay iyaduna ay ka hadlaysaa. Waxaadna tiraahdaa Allaahumma raxmatika arjuuka falaa takilnii ilaa nafsii darafta cayni waaslax lii sha'nii kulluhu laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min addaaliin. Ducooyinkan akhriso, kulli hal shay way ku anfacayaan. Haddii markaa ay arrinku adkaato, arrintaasna aadan xalin karin, tamar iyo taagna aadan u hayn, adigana ay kaa weyn tahay, xagga hoosena af Soomaali baan ku soo qorayaa, ku celceli ducada.